السلام عليكم guys dhamaantiin waa idin salaam idin lahaantiin goob walba joogtaan waxaan idin kula anagoo dhamaan isku duuban oo studio Sirma qaba waxaan idin leenahay Ramadaan mubaarak kadib waxaan idin wadnaa god munaasabadooyin kala duwan oo noo qaban doonaan fanaaniinteena waa muraayadii dalka u soo bixisay ugu horeen intaan barnaamijkan sii gudub gelinne YouTube channelka daawanaysaa waa Daadir Kukay official fadlan like subscribe comment ha ka iloobin haddaad noo baahan tahayne commenti noo soo gal wax walba u baahan tahay waa naga helaysaa sida sawirada wax walbo adig u baahan tahay fiidiyoyada aroosyada dhammaantood waa naga helaysaa haddana barnaamijkeeni aan waqtigan usoo dalagalnay inaan sameyno aan idin soo jeedin doonaa nala daawasho wacan marka barnaamijka ugu horeeya aan ka hadlayna wuxuu yahay showga fanaaniinta muraayadda dalka maalinta ciidda habeenkeeda oo lagu qaban doono goobta Elete Hotel waa hotelkii fanaaniinteeni showga inoo qaban lahaayeen bal waa imise fanaaniinta maxay kaliyiin aan wada aragna marka horta ugu horeyn showgaasi qiimihiisa waa $20 waxaana iskugu imaan doona fanaaniin kala duwan oo magacyo weyn kala leh sida aan wada naqaanana waa fanaaniin codadkooda aan ku wada raaxaysan bal aan wada aragna fanaanka ugu horeeya waa Xamaada on the beach waa fanaan weyn midka xiga waa Qadar Ibrahim Qadar Keyo waa fanaankeeni waa halyeegeeni dalkeena u soo baxay midka xiga Cumar Jaaja waa fanaan wada taqaaniin Kiin Arash anada Qamar Suugani aan iskalaaj Naasir Yar Naasir meesha kama marna waa u joogaa bal aan wada aragna showga city waxa uu ka dhici doonaa Hotel Elete bal yaa laga waanin qiimihiisa waxaad weyn maaha waa $20 oo lacaga $20 ma muraad dalka ku iibsanaysaa midka xigo xigay aan usii galgalna ciida oo ah Ismaaciil Arka iyo fanaaniinta Muqdisho oo lagu qaban doono Royal Plasma X City Plaza showgaas oo qiimihiisu uu yahay $10 bal aragna fanaaniinta asina saasita ugu soo qiimeynaa fanaanka ugu horeeya waa Ismaaciil Arka fanaan Dayax Dalowsha iyo Shaadiye Sharaf iyo fanaankeenna xiga Cabdikariim bal aan wada daawana asina waxaa qiimihiisu yahay $10 iyo showgii maalinta ciida aan kasoo wada qaybgalna marka haddana waxaa idin soo badnaa showgii ugu muhiimsanaa ee dalkana lagu qaban lahaa waa showgii waa fanaaniintee waana dadkee bal aan waa aragna waa kana bal aan showga habeenka xulka fanaaniinta Hargeysa iyo haddana waxaan idin soo badnaa showgii ugu qiimaha badnaa ee iskugu imaanayeen fanaaniinteeni Muqdisho oo aan meesha ka marnay fanaaniinteeni kaleete ee Hargeysa waa kuma yaabay yeesi meesha kama marna habeenka xulka fanaaniinta Hargeysa iyo Muqdisho waxaa hogaaminaya Najm Nashaad iyo Axmed Carshe maalinta ciida habeenkeeda fanaaniinta kasoo qaybgalayana waxay yihiin Maslax Mideeye Khalid Kaamil Shama Boy Malyumaanka sidaasi nabadgelyo waxaan idinku dhaafeynaa Ramadaan mubaarak dhammaantiin YouTube channelka daawanaysaan sidaan hore ugu sheegnay waa Daadir Kukay official like ka iloobin sidoo kale subscribe iyo share dhammaantiina waxaan idin sheegaynaa waa showga ugu muhiimsan ee lagu qaban doono dalkeena oo iskugu imaan doona fanaaniinteena Muqdisho iyo fanaaniinteena Hargeysa oo ay hogaaminayaan Najm Nashaad iyo Axmed Carshe soo qaybgal wacan soo dhawaada idin leena dhammaantiin meel walba joogtaan haddana waxaan hore usii googanaynaa wareysi yar oo showgeeni maalinta ciida la qaban doono halkan waxaa ii taagan Maxamed Abuukar Maxamed soo dhawow walaal waxaan ku leeyahay horta soo dhawow gacmo furug soo dhawow walaalkay maahir kulay koos waa dhawahay maxaa yeelay maadaama ay Soomaaliyeena oo ku midoobeen showgaas oo ku faraxsanahay maadaama ay imaanayaan showgaas dad badan oo caan ah oo ku faraxsanahay inay kusoo dhawaadaan dalkeena hooyo waa dalkooda oo kusoo dhaweynayna anagoo ku faraxsan inay noo imaadaan waa walaalaheena Soomaaliyeed oo ku taageersanahay inay kusoo dhawaadaan soo dhawaad aan leeyahay gacmo furan
marka waxaa ku weydiinayaa adi saddex barnaamij oo la qaban doona kuusoo sheegay ani ahaan alelehay waxaan isleeyahay barnaamijkan oo hogaaminayaan najma nashaad iyo axmed caarshe kaasa ugu shida bal haddaad falanqeen yar naga siiso barnaamijka sida axmed caarshe iyo najma nashaad meeshan fanaaniin aan ka marnayn sida khaalid kaamil oo kaleeta sharma boy ummadaas dhan isku wada imaanayso bal sidaad aragtaa fanaaniinta seti inoo imaanaya dalkeena oo ana soo dhaweynayno maxaa noogula soo dhaweyn leed marka fanaaniintaas maasha allah horta dadaa kala xigsanaya malaha soomaali waaye soomaalina waa dalkeena hooyo waa jecelnahay waa walaaliheena kuley waxaan leenahay soo dhawaada showgiina aan aragno waan idin jecelnahay 1,000 jeer soo dhawaada ayaan leenahay meeshaaniiti alelehe yaad qaas ahaan ugu soo dhaweyn leed fanaaniintaada bismillah horta ugu horeen waxaa aad iyo aad u taageersanahay najma nashaad iyo axmed caarshe waan idin soo dhaweynayaa gacmo furan maasha allah walaal maxaa mahadsantaha adin haddana meeshaaneed waxaa noo taagan walaalkeena walaal waxaan ku leenahay soo dhawow magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay waqti xaalkan dar asxaabtan na daawanaysa la wadaag intaan barnaamijkeeni sii gudagelin maasha allah waan dhawahay walaal waxaan joogaa waxaa waaye studio sir maqabe janaalka maanta kasoo muuqanaya waa daadil kuke afashiyaal magaceygu saddexna waa axmed cali xasan axmed cali xasan walaal macaan soo dhawow youtube channelkaad naga daawanaysaan adinkana waa daadil kuke official like subscribe share marnaba maskaxdiina haysa ka bixin axmed maanta horta waxaan kuu soo wadaa barnaamij ah oo shoogii munaasabada ciidda shoogii munaasabada ciidda waa badan yihiin marti badan waa noo imaaneysaa martida inoo imaaneyso sidee qaab nocee loo soo dhawey karaa run ahaantii waa waxay sareeri kareen fanaan waa fanaan waa xidigaha dalka soomaaliya waa xidigaha muqdisho dhammaan waa wada jecelnahay waa dad soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhawow soo dhawaada kusoo dhawaada munaasabada ciidda waxaan aad iyo aad markan ugu soo dhaweynayaa fanaaniinta martida noo ah ee nooga timaaday wadanka banaankiisa gaar ahaan hargeyso waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada maasha allah fanaaniinteena dhammaantiinaba waxaa tihiin maraayadii dalkeena anagoo guud waxaan idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan wadanka waa wadankiina waxaana tihi idinkan muraayadii dalka hadda yacni su-aal kooban haddaan ku weydiiyey anigoon kusii dheeraanayno alelehe shoogii oo sahl kilometer 4 oo ah axmed caarshe najma nashaad iyo electric hotel iyo labadaas show xataa ka soo qaad labadaas show alelehe keeshadan oo alelehe aad ka qayb gali kartaa ama alelehe aas leedahay qiimahiisa waa $10 waa $20 wax lacag saasoo sii badan maaha run ahaantii hadii lacag laga fikiro maanta wax intaba aha lacag waa dhamaanaya waaye laakiin hadda maanta la fiiriyo walaalaheyna oo soomaaliyeed oo maanta show inoo qabanayo hadda maanta showda aan tagno oo aada gacmo furan kusoo dhaweyn alelehe waa mid aad iyo aad u xamaasleen masuultuulkiina aynana wada jeclaanayno wada jeclaanayno gaar ahaan anaan ahaanta ka hadlo waxaan jeclaan lahaa inaan tago hotelka najma nashaad marka walaal martida wadankeena inoogu imaaneyso fanaaniinteena hargeysa najma nashaad iskalaaj iyo axmed caarshe iyo maslax midaaye iyo khaalid kaamil maxaad leedahay maxaad ku bogaadin lahayd marka wallahi horta waxaan leeyahay horta showgaas show kheyr ilaaha ka dhigo mana la kala maqnaan doono waxaan umaleynaa hataa meel la istaago inaan la waayo showgaas insha allah sidaasaan kusoo gabagabeynayaa inoo ciida ka bacdi showgaas aan isku imaanina haddaba ha ka marnaanina marka showgaaseti waa habeenka ciidda youtube channelkaad daawanaysaana waa daadir kukay official like ha ka iloobin sharena ha ka ilaawin subscribe-kan waa